sheekadan waxay ahayd sheeko aad iyo aad u xikmad badan oo dhex martay wiil iyo aabihii. qisadani waa qiso aad iyo aad u qiiro badan oo kaa qiiraysiinaysa, waxayna ku socotaa waalidka iyo ilmihiisa xidhiidhka ka dhexeeya in ay wanaajiyaan. waana xikmad dhaxal ah oo laydinka tegay, looguna talagalay in aad ka faa'iidaysataan kuna cibro qaadataan. wiilkan iyo aabihii waxay ku wada noolaayeen hal guri. wiilka magaciisuna wuxuu ahaa cabdiraxmaan, aabbihiisna waxaa la odhan jiray maxamed. run ahaantii aabbo waxaa qof da-a oo da-diisu tahay meelaha 70 jir, inankiisuna wuxuu ahaa xilliga dhallinyarnimada ugu fiican ee 25 jirka. maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday in uu aabbihii yidhi, aabbo, wiilkayga cabdiraxmaanow, gurigan waan ku caajisnay, xogaa waxaan u baahanahay inaan bannaanka iyo laydha hawada aan soo marmarno oon soo qaadanno. markay guriga ka soo baxeen ay in badan soo socdeen ayaa waxay yimaadeen meel aad iyo aad u qurux badan oo jawigeedu fiican yahay. kadib meeshii bay iska fadhiyeen, in badan way iska sheekaysteen. kadib waxaa dhacday in uu gorgor soo dego meeshii meel u dhow ay fadhiyeen. kadib wiilka aabbihii baa wuxuu weydiiyey, waxa halkaa ku soo degay waa maxay aabbo wiilkaygiiow? ayuu ku yidhi, hadda isagoo garanaya in waxaas yahay gorgor. wiilkiisii yaraa ayaa wuxuu ugu jawaabay, aabbo, waxaasi waa gorgor. haddana aabihii wuxuu ku celiyey su-aashii oo wuxuu idhi, aabbo, waxa halkaa ku soo degay waa maxay? wiilkiisii ayaa wuxuu ugu jawaabay, aabbo, maad indhabeeshay, miyaanad arkayn inuu yahay gorgor? haddana aabbihii ayaa wuxuu ku celiyey isla su-aashii oo wuxuu idhi, wiilkaygiiow, waxa halkaa ku soo degay waa maxay? aabbaha kama ahayn garasho la'aan iyo in uu arki lahay, laakiin wuxuu tijaabinayay wiilkiisa. wiilkiisii ayaa intuu xanaaqay ayaa wuxuu yidhi, aabbo, maad dhaga beeshay, waa ku sidee, maxaa ku helay? sawniga kuu sheegay inuu yahay waxani gorgor. aabbihii ayaa intuu wiilkiisii gacanta soo qabtay ayuu yidhi, wiilkaygiiow, idhegayso. adigu markaad yarayd su-aashan waxaad i weydiisay 250 jeer, waad igu celcelinaysay, anna waan kaaga jawaabi jiray. laakiinse maanta 2 jeer oo keliya oon ku weydiiyey ayaad i leedahay, aabbo, maad indhalaaday mise waad dhagabeeshay? wuxuu yidhi, aabbo, wiilkaygiiow, adigu khalad kuma lihid. khaladkan anigaa geystay, sababtoo ah berigii hore aabbahay umaanan wanaagsanayn, hadalla noocan ayaan kula hadli jiray. ma ogtahay adigana maanta hadallada igula hadashay in ay meel kuu taallo oy awlaadaad kugula hadli doonaan? qisadeennu halkaas ayay ku egtay, balse laakiin waxaan idinku darayaa wax yar oo tala ah. ma ogtahay waxaad maanta waalidkaa u geysato in ay berri kaa jari doonaan? awlaadaadu ha weynaato ama ha yaraato, waa wax aad sii dhiganayso oo silsilad noqon doona ilaa ilmahaaga ilmihiisa. ugu dambayn waxaan idin leeyahay, waalidow, dhowra ilmihiinna si ay idiin dhowraan markaad weynaataan. sidoo kale dhallinyaro waxaan idin leeyahay, waalidkiin ilaaliya si ay idiin ilaaliyaan ilmaha dhali doontaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.